taliyaha ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka togdheer maxamed faarax nuur oo shir jaraa'id ku qabtay qaybta booliska magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka hadlay dil saaka ka dhacay bartamaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo loo geystay marxuun lagu magacaabay jiray cumar cabdi faarax oo lagu dhex joogtay saaka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer. taliyaha ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka togdheer oo heer fadhiyaan qaar kamid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan eedeysanihii dilkaasi geystay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan: gaar ahaan caasimadda gobolka togdheer in saaka saacadu markay ahayd 9:00 subaxnimo gacan ku dhiig leh Mustafa Axmed Cali oo 48 jir ah inuu ku toogtay suuqa dhexdiisa marxuum la oran jiray Cumar Cabdi Faarax oo 46 jir ah. kadib markii loo soo sheegay isla markaana ciidanku uu ka howlgalay muddo ugu dhow meelaha ilaa iyo 30 daqiiqo inaan ku qabanay gacan ku dhiiglihii isla markaana aan ku hayno gacanta booliska horgeyn doonana sharciga. marka wuxuu ku dilay baastoolada gacantaanu ku haynaa, sharciga waan mareynaa. eheladii marxuumkana waxaan leenahay ilaahay samiri baan haydiga siiyo, jannada firdowsa ilaahay maartay ka waraabiyo. waxaan leeyahay istajiya gacanta baanu haynaa, sharcigana waanu marin doonaa insha Allah. sidaas baan ku wargelinayay. waxaan leeyahay gobolka togdheer hasiyaan gacan ciidanka booliska kolba waxay uga baahdaan iyo wixii xoolaana dad badan oo noo sheegayna way jiraan aarowgii ninkuu ka baxay kuwana waxaan leenahay 100% halkii uu maray iyo qaabkii ay noo tilmaameen waanu ku guuleysanay, gacanteedaan ku haynaa. sidaas baa la socodsiinaa. wasalaam علي عثمان حارس تلفزيون عالمي كوبانيمو مقالة برعي حرونتو قبل كتبلر.